جنرال عيديد فرجنو إلى جوهر. عيكم بالأوديو عبارة يكسي عبد قاتل halkan waa Farjano ishuna waa 16 Janaayo 1991 waxaad arkaysaan General Caydiid iyo ciidamadii uu hogaaminayay qayb ka mid ah oo ku jihaysan magaalada madaxda Muqdisho oo rajiimkii Siyaad Barre shacabkii si ba'an madaafiic ku laynayo sida la ogsoon yahay halgankii lagu jiray Siyaad Barre waxa uu dibdhaxaad adag u ahaa General Maxamed Faarax Caydiid oo ahaa hogaamiye ay u cadeed waxa uu rabay iyo meesha uu socday ugu dambeynna guul weyn ka soo hooyay halgankii Soomaaliya looga xoreynayay kaligii taliskii Siyaad Barre waa subax aroori ah oo ay taariikhdu tahay 17 bisha koobaad 1991 General Caydiid oo ka yimid deegaanka Farjano oo uu ka waday abaabul ciidan ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Jowhar xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. General Caydiid markii uu galay magaalada Jowhar ee uu wax yar joogay ayaa mar qura warkii waxa uu wada gaaray bulshadii magaalada markaas baa dadweynihii farxad isku soo wada bixin iyagoo oo muujinaya sida ay maqsuud ugu yihiin halganka iyo dadaalka uu wado General Caydiid una eg sidii dad abaar jooga oo roob u daay dadka isku soo baxay waxa ay kala haayeen laba qaybood dadkii magaalada hore ugu noolaa iyo kuwa ka soo qaxay Muqdisho oo ka soo cararay madaafiicdii rajiimka Siyaad Barre caasimadda ku garaacayay dadkii isku soo baxay oo kala ahaa qaybaha bulshada oo dhan ayaa waxa kamid ahaa dhaqan iyo aqoon yahano oo aan ka tilmaami karno ina Sheekh Aways sheekh aan ku ahaa dariiqada qaadiriyada khudbadii uu General Caydiid dadku ugu jeediyay magaalada Jowhar ayuu ugu sheegay in halgankoodii miro dhalay oo hadda wixii ka dambeeyay ay xor yihiin dhiig badanna uu ku baxay xorriyadda ay maanta haystaan oo rag badan u soo dhibaatoodeen General Caydiid waxa uu aad uga adkeeyay inay xornimada ay maanta haystaan ay ku fara adeegaan aadna u ilaashadaan iyagoo ka dhowraya in ay ku laabtaan kadeedkii la soo maray oo dhabtii ahayd dardaaran cad waa ma laga qab waqti fiican baan isku jirnaa oo aanu iswarsano oo aanu hadal gadaal weeyay bas mil daltiina xornimadiisii meelo yar oo yacabkii ku dhuuntay aanu ka saarayno kaliya nooga hartay ma haddaasna waxa iska leh shacabka Soomaaliya oo gartay xornimada waxay tahay iyo adoonsigu waxa u dhaxeeya xornimo iyo hadii ay ku leeyahay adoonsigu maanta waa ka baxday waxaan leenahay in ay dhisanto talis dadweynaha ka dhasha dadweynaha u dhasha dadweynuhu u taliyo midda weeye midda hadafkanagu horumar iyo nabad inaan ku waarno yaan ilaahay ka rajaynayna hadafkanagu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waad umantiin marka inaad ilaa iyo markii dhiigi cabka aad fahanteen xeelihiisa aad guntateen oo aad diyaar garowdeen oo aad ku qaadeen dagaaladaas culus yaan idinla qaybsanaynaa anagu meel kastaan ka nimid insha Allah waxaan nahay haddii ay ku roon yahay carruurtii shacabka Soomaaliyeed intii dhimatay inta nool inta dhalanta haddaba xornimadaas maanta gacanta idiin gashay ma maqlaysaan xornimadaas gacanta idiin soo gashay
idinka fikanin mar dambe ha iska sii daynina allahu akbar allahu akbar xornimo macaankeeda waa la dhadhashay horey baa loo dhadhashay haddana addoonsi qaraabkeeda dhiigyacabka 21kii uu xukumahayay dalka ee ka hirgeliyey xasuuq cadaalad darro ee hantidii ummadda u dhacay u fogaystay uu ku takifaray xabis aan xad lahayn ya dil wax kasta oo xun handadaad caburin maantay baad ka baxday carabkii xornimo labaad bay gacantaad ku haysataan ilaahay weynaa ugu shukriya ilaahay aamina alxamdulilah aamina آمين سكر صنعاء عدوين إلى الكعب الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا خدان جي سينا هاي هي أوروبا كلا معارض كا SPM SNM إن أنك حرينه رجيمك كان لي جعبك Soomaalida oo dhan si loogu soo celiyo dalka Soomaaliya gudihiisaba nabadgelyo dimuqraadnimo iyo xornimo waxaanu u dagaalamaynaa in aanan dalka naga mar dambe siyaad barre ka bacdi aynan ku soo noqonin dictatura ama kaligi tashanimo oo aanu soo celino nidaamkii aan hidaha iyo dhaqanka u lahayn oo ahaa democracy oo adduunka dhani nagu amaanay annaguna kumayaal sano aan kusoo dhaqmaynay nidaamkaas oo aad iyo aad u fiican democracyguna uu yahay mid annaga aan keensano dibadda ka keensano uusan ahayn mid uu yahay annaga dhiigga nooga jira oo weligana aan ku dhaqmi jirnay geedka hoostiisa aanu wax walba ku xalisan jirnay dadkanagu ay raali iskaga ahaayeen iyadoo la dhowrahayo go'aanka inta badan sidaas ayaanu u dagaalamaynaa una soo celinaynaa doonaynaana dadkanagu inuu ku dhaqmo ku noolaado oo ku helo xornimadii uu dhumiyey 21 sano ee maxamed siyaad barre uu xukumahayay dalkan kana riday dhibaatada weyn hooga ba'a dilka xariga aan xadka lahayn iyo baabi'inta hantida ummadda Soomaaliyeed hadalkaas wuxuu muujinayaa in dheergaradnimada iyo waayo aragnimada Janaal Ciidiid waa nasiib xumo in 30 sano kadib maanta lagu sugan yahay xaaladii uu shalay ka digay Janaal Ciidiid